Paracetamol waa nin xaafadaha iyo ama paracetamol oo aniga saaxiib aan moodayo walaal moodayo ehel moodayo qaraabo mooday maanta waa kana guriga ku kalgashay muddo 5 beri waxaan ku dhex jiray daraama aan dhamaanaynin maxaan paracetamol waa nin xaafadaha iyo guryaha la isku qabo always aan ka dhamaan gabadhii aan aad ku jeclaayo marwadeeda aheed oo gurigeyga maanta saas u ka dhigay dhimalaha gabdhaha Soomaaliyeed ilaahay badiyay marba aday taagan tahay xaaskeyga xalaasha aheed inaan maxamed paracetamol heemba mas'uul iga ma anu gabar mas'uulkeeda waxaan u aqaanaa waalidkeed iyo adeeradeed iyo walaaladeed wixii ka soo hara Soomaha anu mas'uul uma garanay maxamed paracetamol anigu mas'uul ima aha adigana ma ku noqon karo maya maxamed paracetamol mas'uul iya taasi way ka soo tagtay gabadhii maxamed paracetamol bay waxay ku tiri ninkan ha idhigo akhara waa isu istaajina codkana waa yaala waxay tiraahday ha idhigo asagana wuxuu dhaay gabadha anagoo ilma adaradeeda baa gabdhaha garabka taagan dhig gabadha ani hal qof aan ahay 4 qof uma jawaabi kari 4 qof ay isku ka soo baxeen 4 qof wala iska kaheliya 4 dhinac la iga soo galaa 150 video 150 cod qof walba wuxuu leeyahay gabadha iska dhig maxamed paracetamol aba la soo wakiishaba asaa wakiil u baahanba gabadhan maskiinta oo Jarmanka joogto qatano baahano waxba hiisanin iyo asagiyo shaqo tageen asagiyo aba faqri ku noolbe markaas gabar meeshana waxay ka dhigatayba mas'uul anu maxamed paracetamol de mas'uul imaa maxamed paracetamol isdka Mansoor markuu imaanay am the only one caawiye gurigiisa hadda uu dhistay dhaqan Mansoor waxa laga yaqaanaa qofka markuu guri dhisto waa loo shopping garayaa 10 kuno aniga ii ka baxan Ilaahay sadaqa Allah kaaga dhigo adiga iyo noocyadaada kale tan ani inaan bartama annaga garbaheeda taagan gabadhan aniga waan kala tagnay garbaheeda adaa taagan tahay hal lagu arkaa boo hal lagu arko garabkeeda si fiican u taagnaanay abo qan mareexan